Michael. Hello. Abowe, odaygan Umar la dhaho tug waaye. Abowe, odaygan Umar la dhaho tug waaye. Odaygan Umar la dhaho tug waaye. Maxay tahay sababta? Abowe, odaygan Umar la dhaho tug waaye. Uu boqor noqday wuxuu jiray 8 sanadood. Marka kulli waxa uu maleynaa 8 sanadood iyo 18 inay laba kala yihiin oo laba cadad yihiin. Marka this is a contradiction ama iskurin weeyaan oo waadax oo cad. Marka Michael hanoo sharxo sidoo rabo marka uu sharxo qaabku rabo uu sharxo dhageysanayna insha Allah. tahay fariin oo qaldan oo nuqaal yaqaan amal waxay u baahan tahay marka maybe ma ku tamiisdeesan oo jiray ay u maleeyaan inuu ahay aldasiya waxay u maleeyaan 8 jira markuu ahaa waxay u maleeyaan inuu 18 jira marka buugga Soomaaliyeed inay dad qoreen so that's an error hatta you acknowledge error not Michael. error baa ku jira markii la yiri oo ugu dambeyntii meeshii gunaanudkii iyo natiijada la marahay waxay tiri ninka dadku duubanaya naga soo bixiyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة مeel kastoo joogtaan waxaan idin rajeynayaa waqti wanaagsan inaad qaadanaysaan waxaan idin leeyahay soo dhawaada maanta waxaan idin wadaa oo reaction ka bixinaynaa cod video reaction laga bixiyaad barateen cod reaction laga bixiya ayaan maanta idin wadaa waa dood dhex martay Sheekh Umar iyo wiil isku magac daray ama la magac baxay Michael oo isku sheegay inuu yahay Masiixi ama Kristaan Sheekh Umar wuxuu doonayaa inuu wiilkaasi ka dhaadhiciyo inuu kitaabkan ama buugga ay haystaan uusan ahayn hadalkii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uusan ahayn kitaabkii Tawraada ama kii Injiisha ee uu yahay wax la dhalan gadiyay oo dad ay qoreen wuxuu tusaale u soo qaadanayaa qormo ku taala buugga laba qormo oo buugga ku yaalo oo iska hor imaanaya boqor la yiraahdo Yohakima mar wuxuu boqornimada qabsaday asagoo jira 8 sano buugga ku qoran tahay waxa meel kale ku qoran boqorka Yohakima wuxuu qabsaday boqortinimada asagoo jira 18 wuxuu leeyahay noo fasira maxaa iska hor keenay ilaa hadalka Ilaahay iskama hor imaadeen Ilaahay wuxuu quraanka ku leeyahay walaw kana min 'inda ghayri Ilaahi lawajadu fihi ikhtilafan katira kitaabka quraanka haduunan hadalka Ilaahay uusan ahaan lahayn oo meel kale ta laga keeni lahaa ama Nabi Maxamed oo meel kale ka keeni lahaa waxay ku arki lahaayeen iska horimaad farabadan maadaama oo iska horimaadkiisu ziira yahay oo iska horimaanaynin waxay cadeen u tahay inuu yahay hadalka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala dadaas sida ay ahlu baatilka u cararayaan ay ugu qanacsaneen waxa ay aaminsan yihiin sida ay uga cabsanayaan in la duubo ama waxaan ay sheegayaan dadka loo gudbiyo ayadoo aanan garanaynin sababta ku wada khasabtay kulligood inay ka cabsadaan baraha bulshada intay imaadaan si public ay u soo fadhiistaan dad meel ay kala joogaan ay garanaynin ayagoo la hadlaya haddana ka cabanaya waa nala duubahaya muuqaalkaas ayaa reaction ka bixinaynaa ama codkaas ayaa reaction ka bixinaynaa dhageysi iyo daawasho wacan ayada miya isla ayada maya waa King kan labaad waa soo akhrinay hadda waxaan rabaa inaan u gudbo kitaab la yiraahdo taariikhda labaad taariikhda koobaad iyo taariikhda labaad leeso maartay King 1 iyo King 2 iyo haddana maartay taariikhda koobaad taariikhda koobaad okay now ay taariikhda labaad waay tan labaad waay taariikhda labaad cutubka 36 haye Chronicles yeah ay Sheekh Umar Chronicle 2 miya Chronicle 2 cutubkana waa 36 faqradana waa 9 okay waxaa meesha ku qoran Yahwa Yaakiin markuu boqor noqday wuxuu jiray 8 sanadood marka kulli waxa uu maleynaa 8 sanadood iyo 18 inay laba kala yihiin oo laba cadad yihiin marka this is a contradiction ama iskurin weeyaan oo waadax oo cad
marka Michael hanoo sharxo sidoo rabo marka u sharxo qaabku rabo u sharxo dhageysanayna insha Allah. اوكي بقرة تاريخ اللواد مكاف بقر محلي تاريخ اللواد 36 ان قرمده سغالات قرمده حوا فيرس ما كبددو فيرس 9 first way oo yahay Kiina markuu boqor noqday wuxuu jiray 8 sanadood oo Jerusalem boqor buu ku ahaa 3 bilood iyo 10 maalmood oo isna wuxuu sameeyay waxa Rabiga hortiisa ku ah mid kan wuxuu ahaa boqoradii labaad maka 24 8 labada qormo midna waa 8 jir midna waa 18 jir yani labada aayadood u koraysa and the first u koreeyo waxa weeyaan he was 18 years old when he became a king, and the other one he says he was 8 years old when he became a king. هذا ما يكلم نقطة سرية ما. اسمه مقع على اسكريبت ما اسمه خف معها. هكذا. It's not the same person. It's a different because مقع يهود واسكو بحجزين مقع Jewish name the same. So it's not the same person عمر. jawaabta koobaad uu ka bixiyay wuxuu leeyahay labada ruux ee laga hadlay leeyahay marna 8 sano ayuu boqornimada ku qaatay marna la leeyahay 18 buu ku qaatay laba ruux oo kala duwan ayaa laga hadlayaa magaca ayaa isku mid ah yuhuudana magaca way la wada bixi jireen sidaas uu jawaabtiisa koobaad ay noqotay balan sii dhageysano ila socda. The name is the same thing. No, the name is the same, but it's not the same. حتى فاسسك كوحيga آخري وحو شيغا إن اسكو حلقو فيها اسكو هويو يحي آخر فاسسك يعني in context هذا لا context كواخر context. King to. Okay. You أرجع عنه من وشيغا ولا بقى في كلمة. King, second king, so you guys Oh, okay. Second King 24. Well, King 2:24. 8. Well, chapter 24 8. 24 verse 8 ميراث. كان كلامنا وحوي Chronic 2 chapter كان في 36:9. Yeah, 36:9. So the name is the same thing. Every context formation could say same descriptive وهل قف على شرحها هل مقالة but the only difference you have when one says he was 18 years old she did it when he became a king. It's known contradiction throughout the history. It's known and there's no argument. Nobody's defending action. AJ. We give it to him. شرحها مسرحها yes. I answered apology. sawirka haddaa fiirin kartiin oo soo saaray labada maaragtay oo virus marka cadadkii iyo wixii meesha uu ku qoran yahay marka jawaaba ka sugeena Michael wuxuu yiri laba qofood oo kala duwan waayo sidaas buu maaragtay hadalkiisa yiri marka hada kala duwan la imaado wali moodinin Michael masaaf la tiri Sheekh Umar wuu isuubaa si degan u hadlaya sayaan ka warsugeynaa u leeyahay wuu isuubaa inaanan waxaan wax iska hor imaanay u yahay si loo xallin karana haysan ahayn ما اسكو مقع وايا لكن now هادو أخذوا the latest verse ما يولي conclusion ها ويجي مقع بان يان بحيل
conclusion ma gaarin buu yiri marka natiijada ugu dambeysay wiilka waan ka sugaynaa ha akhriyo ha ku laabto Sheekh Cumar waa iska fadhiya waa sugaya alla sugno jawaabkan kaga fadhinaya Michael hello aboowe odaygan Cumar la dhaho tug waaye aboowe odaygan Cumar la dhaho tug waaye maxay tahay sababta aboowe odaygan Cumar la dhaho tug waaye dadku duubtaa isagoonan weydiisanin fasax waan qaayna ma garatay dadku duubtaa isagoonan fasax weydiisanin gabadhan way fadhiday runtii maanta dhan way dhageysanaysay codka way dhageysanaysay markii ay xaaladdu cakirantay oo wiilku meel uu ka baxsaday uu waayo jiq ay noqotay ee waxay doonaysaa inay la baxsato la baxsi baa la middan oo kaleeto yaa wiilkii quusad buu gaadhay marka waa inay meesha buuq ay furto oo ay tiraahdo cod baa la duubaa kan si loo cararo weeyaan ilaa waxa lagama jawaabi karo waana la is ogyahay haye balan dhageysana gabadha maxay tiri ay ma jirtay su'aasha ma ka jawaabaysaa Michael maanta dhibooda عمر إلهي مكو وجهنا دوبيسو ويلكي وعاد بو عبسنا بابليك بات كهلا يسا جروب بات كوجرتها روح كستا سوق لك الماشا wax aad aaminsan tahay mu'taqad baad ka hadlaysaa hadii lagu duubiyo hadaan lagu duubin maxay isbedel oo keenaysaa maxaa laga fasax qaadanaya ilaa adu brevet meeshan maaha waa meel public ah soo istaagtay yani la duubin gorme maarta sharti u aha ma jirto okay my umar weydiyo wait guys hold on Shafi'i gabartaas waxay samaysay waxay ahayd way caay umar ilaah ma kuloo geena hadii duubisay kiyara meesha si uga dhigantahay عمر إلهي ما كوجو جايين هذا يدوبيزي هذا يدوبيزي أي عمر وتورنا هذا يدوبيزي ما كو عفناي ما عمر إله ما كله جايين هذا يدوبيزي مايا أيوة بيري مايكل الدجاج هاي وحبا يويدس إلهي بيقول إنا مرتي كل كود جرينين نوحب الدوبيز سؤال كليه كويدي marka gabadhaasna caadi way marka ayada dib u marka Sheekh Cumar khayr Allah siiyo si degan buu uga jawaabay wuxuu yiri kuma record gareynayo kuma duubeynin Ilaahay baa igu gabadhaana wuxuu yiri ayada dib oo ma arkaba gabadh maratay walqo fihi wadawa maadaama xaq la cadeynayo buuq bay ku furaysaa iyo buraamur laakiin waxa baraarujin mudan Sheekh Cumar waa sida uu dhaartay muunan duubeynin لكن دينتن أدربتان إن كفس هذه سان ضدك وإله سبحانه وتعالى كم من يستوي إسلامك ومليار بعد بني آدم يا تابع سنة ضدك عندنا الصومالي ده ماشي كوتشر الإسلام Sheekh Cumar markas taba codka dad walaalaha islaamka kamida oo diintooda u danqanaya oo dadka muslimiinta diintooda inay u badbaadin raba ay codka intay duubaan bay u dirayaan anay isoo dirayaan ruux kale u dirayaan waa la qaybinaya codki meesha waa meel public ah dad fara badan baa iskugu imaaday dee adiga ruux kasta telefonkiisa lama haysatid marka marba haddaad public aad la soo istaagtay oo muctaqadkaadii waxaad aaminsan tahayna aad ka hadlayso معنى ما كينس إن أتكضوا واللي دوبي اللي ما دوبين يوم معرض توبي وحن أتكاظ شو معنى ما كينس لكن وحيد سنة إن أد وح هذا هي ستعادنا كوقنا سنين هذا الدفاع عن كريم بيكون سنة كنت شو عمر ما دوبين لكن ولا لها كلتا إسلام كعدوبي وحسوا حسوسين يا قصة اللي جسوا وريها هارون الرشيد وعارك الضرور صعته كاسو حيري ماشى دون تكودا ضروري تقول الله مال الله ماشى دون تكودا فسوف يأتيني خراجك ويحك خراجك ويحك صباحا يا مارت علفكي أما راشينكي أما ويح اللي وين تفعل بنادم كون تفعل هاي دولك عتكسر صارت سببتها كصبا وسوق قال دون وكهلا ممكن يصير هذه أدو بلارنا أو مارت مال دول فربضن وهستي وحبوا مركز عمر أما هدوبته أما أدوبين ومدة الصومالية ولا إسلام كعب ويدوبها يعني وحعاتكوها اللسان شو عمرنا ولا سوق قارسينيا أميرة سوق قاضية لكن ولا لها
dooda dhexgelin hataa su'aasha macluumaad maalin hore isagoo cawaale la dooda ayuu tuugnimo ahaan u duubtay ninkan in aad iyo akhlaaq xun ma yimka su'aal baa la weydiinay ma tuurano ma su'aasha ma ka jawaab marana waaye wallahi wax xun ninkan dhan oo hadda sheegayo oo sheegayo oo haddana imaan la'aan uu duubana dadka iyagoo ogeyn uu yuu ولا الأميرة أمورات سؤال لقيت جواب وهذه قضية قاعدة خصيصا أميرة ويل كذا سيف عن الله هذا أميرة حدي كرسون تاعي أو بايبل كعتو كرسون تاعي هنا لو جواب السوق لكن مرت وهنتو أرجع كوي قبل وحرت هنا عرران أيدي يكون ماشى كهالله يلا مركب وحيرادين إنسان مرسين يدي لو عرر لها إلا بيجيس هذه كلامكم مايك بس واحد يسوي مايك كود لقما دغنا قف لعابو قسل بلاابو سؤال بان ويديني ويلكاس دون لوga jawaab kara Amir hada isku kalsoon tahay oo Bible ku kalsoon tahay loo jawaabo okay hadda waa akhri fikradii waatan aan waxa u maleynaa wax inay tahay fikrada ma haysa wax dema buugnan oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ba soo dejiyay leedahay fikradayda dhigi karta wax sax ah oo rabaa inaad ku fikirto ilaa fikradaada adigu khalad ma noqon kartaa saxna ma noqon kartaa waxa saxda ah annaka nooga jawaab waxan is aadi وافج أدتك أقولن كرسين هين الصومالي قص محاوى فكرة المري وحصحنا فكرة ما شافي سوق أيوة أنا حيلتها وحيلتها إني تاي فرين أو قلدان أو نقال يخان عمله وحيوبان تاي مك maybe ما كنت من سديت أجري ملايين إنه هاي أفضل صيام وحي ملايين سديت جري مركو هاي ملايين إنه سديت وجري مركا بوجا سمعت تدينا يدد قرن. So that's an error حتى you acknowledge error. Not error. Michael. Error باكو جري مركا اللي يري أو ضمنتي الماشي جنانو تكي النتيجة ده لما راح waxay tiri ninka dadku duubanaya naga soo bixiya hada shay Umar ma haruux hada marka hadlay yar kale taa hadlay oo islaama wuxuu leeyahay error ba ku jira marka Soomaaliya markaas ay xirtaa inay baxsadaan waxay leedahay naga soo bixiya meesha ila dhigis ana aasha ninkan naga soo bixiya dadku duubanaya su'aasha ka jawaab baxsan wala su'aasha ka baxsan ka jawaab Amira maya ani waxa dhihi lahay we're going to do more study on it wakaha Firi, Michael, أنا عايشة. كان وضو دوبنا كسب حق. Soomaali la qaadan karo. Limaada sharaxna dadka ku garaasana kasoo baxa. horta hablaha walash walaalahem iyo Michael aad bad mahadsantiin maydaan cararin maydaan naga tagin su'aasha hadan macalin garan weydaan waa soo akhrin kartaan waxba maaha laakiin waxa xun iyadoo soo Amir ma toogtay Amir iyada baxday iyada idinka idin yarto wayna baxday brada anaga ma wiilkii wuxuu leeyahay Amir ma toorteen Amir lama toorin ayada waxay tiri soo baxa iskaga soo baxa meesha wayna baxday